محمد بشر كالبشر بل هو يقوت بين الحجر. munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gunaanadayay xuska dhalashada nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa aatee oo muddo dhowr maalmood ka soconaya deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug ayaa waxa ka qayb galay dhammaan culimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaankaasi iyo deegaanada hoostaga. munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa intii ay socotay waxa khudbado diini ah una badnaa isbedelka dunida laga dareemay markii uu dhashay nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa aatee ka soo jeediyay culimada deegaankaasi iyagoo sidoo kale bulshada ku booriyay in loo baahan yahay ay waajib ku tahay in la raaco wadadii uu qaaday nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa aatee. dadkani waxay iskugu yimaadeen nabiga tacdiimkiisa sallallahu alayhi wa sallam dunida waxa loo abuuray nabi Maxamed daraadiisa loo abuuray asaga laga abuuray dunida dhanba laga abuuray wixii makhluuqaba تعظيمك مركب ولا تعظيمنا يعني وحيطها سيدا ماشان الاسكوية وكلا إيجادك أسرع إلهي ونو إيجادية أبورتانك إلهي وأبوري الإيجادية يسير غمضي وحي أصامري إن مارة قلبت لغا شاكايا ولي يدرس خاص عجرتي يكون يأفر بغضي أفرتن سنة وقت لغا جواء لك سيبادان أي مارة سعطي نبقى سيرديسا كشاكين تيسو ومديه نقاو الرئيي ayaguna waxa weeye waa ka sheekay jiray ilaahay waa uga sheekeeyay ayaguna waa ka sheekeeyeen diinihii hore oo anaga maaragtay diinteena ka sii horeeyay way ka sheekay jireen sida anagu aan uga sheekeynay ambiyadoodiina ay uga sheekay jireen annagana hadda waxa weeye waa nabigeena khaaska ah sallallahu alayhi wa sallam inay qof waliba marka ay jeclaato nabiga oo ay maaragtay markii habeenkii iyo waqtigii uu dhashay farx gaar ah ay ku farxdo ilaahay iyo rasuulkiisa qofkii waxaan jeclaynay waxa weeye waxa qiimaha ay leedahay lama arko. nabi maxamed anoo ku faraxsan dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam aan u soo bannaan baxnay asagoo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nool waa loo bannaan bixi jiray asagoo dhintana hadda deeriyo islaamnimo intay soo jirto dhan waa loo bannaan baxay calayhi salaatu wasalaam. waxaad ogtihiin maantii nabi maxamed uu soo galay calayhi salaatu wasalaam magaalada madiino sidii uu leeyahay Baraa ibn Caazib saxaabiga la yiraahdo وحي لما رأيت أهل المدينة فرحوا كفرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نمكي هرين مدينة اللي هرنشر معنا أركب يبا فرحي سيدي النبي محمد قدوم في صوف فرحي وقلت. مناسبة أيا iyadu qaybka munaasabadaha loogu dabaaldagayo dhalashada nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa aatee oo ku beegneed 12 bishan Rabiicul Awwal waxaana inta badan ay tahay munaasabad lagu qabto qaar kamid ah dalalka caalamka iyo Soomaaliya. عبد الرزاق محمد أحمد وربهنتا قرنك الصومالية قال كعيو